waqti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada inaga daawata ay dhammaantiinba ku soo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka waqtiyadan oo kale boggeena youtube-ka aad ka daawataan inagu soo biro fadlan adigoo subscribe-ta daawadayna siinaya gambaleelkana furanayo si aad u noqotid qofka ugu horeeyo ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelino. dhammaantiin waa mahadsantihiin sida aad inoola socotaan iyo daawashada wararkeena. warbixino aad u kulul ayaa daawada inoo soo socdaa. maanta dib waxa u qarxay dagaalka magaalada laascaanood ka socdo ee ciidanka SNM ama ciidanka Somaliland ay duqeymaha ka geysanayaan gudaha magaalada laascaanood kadib intooda badan markii awoodi waayeen inay magaalada soo galaan 15 maalin kadib oo uu dagaal ka socdo. haddaba daawada shalay inkasta oo xoogaa dagaalka uu muuqday inuu qaboobay, haddana maanta oo axad ah ay dib u bilaabeen duqeymihii ay muxuu duqeynayeen. goor dhaweydna waxay duqeeyeen cisbitaalka guud, waana qaybta korontada cadceeda ku shaqeyso ee cisbitaalka haysatay. sawirada halkan ayaan idiin soo dhigi doonaa haddii ay macquul tahay. waxay duqeeyeen goobtii cadceeda ee cisbitaalkaas uu ku shaqeynayay ama solar system waxa loo yaqaano. waa maalinka axadda ah dagaaladaas ay dib u qarxeen. daawada warbixino aad u kulul ayaa inoo soo socdaa, balse markan warihiina ayaan ka dalbanayaa bal inuu inoo dulmaro akhbaaraadkii ugu dambeeyey ee xaaladda waddanka siiba laascaanood. 19 Febraayo 2023 daawada nagala qayb qaado faafinta warkan adigu gaarsiinaya asxaabtaada kuna share gareynaya baraha bulshada. waad ku maasantahay qaybta commentiga haddii aad noogu raabta aragtidaada. mar kale kulanti wanaagsan aynu ku bilownaa. Somaliland ayaa awoodeeda ugu dambeysay waxay u adeegsanaysaa sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool, isla markaana u jabin lahayd difaacyada dadka deegaanka ee ka hortaagan in gudaha u galaan ciidamada maamulka madaxweyne Muuse Biixi magaalada laascaanood si halkaasi ay mar kale maamulkooda dib ugu wareegaan. waxaa la soo warinayaa in maalintii 14aad oo xiriir ah duqeymaha ugu cuslaa Somaliland ay ku garaacayso magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool. waxaa sidoo kale Somaliland ay kordhisay ciidamadeeda weerarka ku ah magaaladaasi, waxaana la xaqiijiyay in ciidamo laga soo daabulay magaalada Hargeysa hub culusna wata ay ku biiraan dagaalka. saaka waxaa ururnimadii bilowday duqeymo aan kala joogsi lahayn oo loo qaybiyay xaafadaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool, waxaana la soo warinayaa in khasaare hor leh oo ka dhashay duqeymahaasi. sidoo kale ciidamada Somaliland ayaa weerar culus ku qaaday fariisimaha dadka deegaanka, waxaana socda dagaal u dhaxeeya labada dhinac iyadoo weli dadka deegaanka ee iska caabinta ku jira gurmadyo dhankooda ay helayaan. waxaa la xaqiijiyay in Puntland dhankeeda ciidamo fara badan iyo hub culus ay ku beerisay dagaalka socda ayna adkaysay difaaca dadka deegaanka, iyadoo Somaliland ay ku celcelinayso in argagixisada ay kula dagaalamayso xarunta gobolka Sool. ciidamada Somaliland ciidamada Puntland dhankoodana dagaalka ay qayb ka yihiin. xaaladda ayaa waxay tahay weli mid cakiran, waxaana muuqda in xaaladda gobolka Sool faraha ay ka baxday oo wax xal ah loo waayay, iyadoo dambiyo dagaal qaramada midoobay u diiwaan gelisay xasuuqa ka socda magaalada laascaanood. dhanka kale odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka Sool ee ku sugan gudaha magaalada laascaanood ayaa la bilaabay in la beegsado, waxaana madaafiic ay ku dhacayaan meelaha aan ka fogeyn guryaha ay degan yihiin, taasi oo keeni karta inay iskaga cararaan goobaha ay ku sugan yihiin. horey waxaa waxgaradku igu soo guureen guryo hore u deganaayeen oo ciidamada Somaliland ay bilaabeen in madaafiic ay la beegsadaan iyagoo degay goobo kale. waxaas hadda ay muuqataa in ciidamadu mar kale ay beegsanayaan guryaha waxgaradka. waxgaradka ayaa kuwa guuraya si ay uga badbaadaan madaafiicda tirabeelka ee lagu garaacayo gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool. dhanka kale gurmadyo horle ayay heleen dadka shacabka ah ee difaaca ku jira, waxaana la sheegay in gobollo badan oo ka tirsan Puntland dad fara badan oo ka baxay iyo gaadiid dagaal intuba dagaalka ay ku biiraan. xaajada ayaa waxay tahay mid marba marka ka dambaysa sii cuslaanaysa, ilaa iyo haddana ma jirto cid si rasmi u kala dhex gashay labada dhinac, iyada oo dagaalka waxba aan la isku reebanin. Somalilandna ay ku celcelinayso in awood military ay ku qabanayso xarunta gobolka Sool. wixii war ay ku soo kordhay xaaladda guud ee magaalada laascaanood wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa ee booynaha haddii laga helo. imikana dowladda federaalka Soomaaliya ayaa cunaqabateyn waxay ku soo rogtay deegaanada galmudug ay uga sugan yihiin kooxda argagixisada ee Al-Shabaab, waxaana laga mamnuucay deegaanadaasi in wax badeecada la geeyo, iyadoo gawaaridii tagi lahaa deegaanadaasi lagu xanibay magaalooyinka Cadaado, Xardheere iyo Dhuusamareeb.
waxaana la sheegay in ciddii isku dayda inay jebiso amarka dowladda tilaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. dowladda federaalka ayaa qaadatay go-aan ah in dhammaan shacabka ku nool deegaanada al-shabaab ay kaga sugan yihiin gobolada Mudug iyo Galgaduud ay iskaga guuraan ayna tagaan deegaanada gacanta ay ku hayaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka si go'doonka lagu hayo kooxda loogu daro mid dhaqaale loogana jaro wixii ay qodan lahaayeen, taasi oo keeni karta in si dhaqso ah ay kooxda isku dhiibaan. waxaa dowladda federaalku ciidamo fara badan ay dhigtay wadooyinka waaweyn ee aada deegaanada argagixisadu ay kaga sugan tahay gobolada Mudug iyo Galgaduud, waxaana la diiday in badeecaduhu ay dhaafaan Baxdo, Xarar Dheere iyo deegaanada kale ee xiga furimaha dagaalka. sida ay noo xaqiijiyeen ila dadka deegaanka waxaa sare u kacay maciishada deegaanada kooxda argagixisada ee al-shabaab ay kaga sugan tahay gobolada Mudug iyo Galgaduud iyo kuwa ku dhow, waxaana lacago fara badan ay ku darsameen maciishada dadka shacabka ah ee xilligan abaaruhu ay ku dhufteen ay iibsan jireen. cabasho xoogan ayaa ka soo baxaysa shacabka ku nool goboladaasi. al-shabaab ayaa dhankooda ku amaray inaysan jirin cid ka guuri karta deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada Mudug iyo Galgaduud, iyagoo ugu hanjabay in ay dili doonaan ciddii isku dayda in ay barakac samayso. shacabka ayaa hadda waxay ku jiraan xaalad adag iyagoo u dhaxeeya amarka dowladda ee ah midka badeecada lagu mamnuucay iyo hanjabaada al-shabaab ee ah in ciddii isku dayda inay ka guurto deegaanada ay ku sugan yihiin ay dili doonaan, hantidoodana ay la wareegi doonaan. xaalad cakirnaan ayaa ka taagan gobolada Mudug iyo Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug, waxaana dowladda federaalku adeegsanaysaa tilaabo kasta oo u aragto in kooxda argagixisada ah looga dabarjari karo xilligan gobolada maamulka Galmudug oo intooda badan lagala wareegay kooxda deegaano fara ku tiris ahna ay uga sugan yihiin. warka ay daawanaysaan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad xasaasi ah ka jeediyay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, waxaana uu madaxweynuhu si qoto dheer uga hadlay qorshaha dowladdiisa dabarjaridda kooxda al-shabaab, guulaha laga gaaray dagaalka socda iyo sidoo kale arrimaha hortaminta u leh dowladda. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbadda ka jeediyay shir madaxeedka Midowga Afrika waxa uu soo bandhigay 4 qodob oo muddaxileedkiisa hortaminta koowaad uu ka dhigtay. xasan sheekh maxamuud ayaa horay u soo hogaamiyay Soomaaliya intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2017, mar kale ayuu talada ku soo laabtay 15 May 2022, taasi oo ka dhigan mas'uulkii ugu horeeyay ee xilka madaxweynaha 2 mar Soomaaliya ka qabta. ka madaxweyne ahaan ahdaaftayda waa kuwa qayaxan in aan ka guuleysano argagixisada caalamiga ah, xoojino siyaasadda loo dhan yahay, kobcino dhaqaalaha, isla markaasina adeegyada aasaasiga ah aan gaarsiino dadkeena u qalma in loo adeego, ayuu ku yiri madaxweynaha khudbadiisa. dagaalka al-shabaab ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maamulkiisu uu bilaabay ayaa ku salaysan 3 jiho: mid military, mid dhaqaale iyo mid fikir, waxaana madaxweynuhu uu sheegay in tillaabooyinka la qaaday guulo waaweyn laga gaaray. madaxweynuhu waxa uu sheegay in qorshihiisa ugu weyn ee diiradda uu saaray ay tahay la dagaalanka argagixisada si nabad iyo xasilooni ay u helaan bulshada Soomaaliyeed. deen cafinta ayuu sidoo kale soo hadal qaaday, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya dadaal xooggan ay ku bixinayso sidii looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay. arrimaha cunaqabataynta ayuu sidoo kale ka hadlay madaxweynuhu, waxaana uu xoojiyay dadaalka ay ugu jiraan dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya sidii cunaqabataynta dhanka hubka looga qaadi lahaa dalka si ay u suurto gasho in ciidamadu ay helaan hub dheeri ah oo ay uga adkaadaan kooxaha argagixisada ah. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa sidoo kale uu ka hadlay xoojinta xiriirka dalalka Midowga Afrika, waxaana uu sheegay in Soomaaliya xilligan ay wanaajisay xiriirka dhammaan dowladahan ayna ka go'an tahay in si dhow looga wada shaqeeyo amniga iyo xasiloonida guud ee gobolka. guud ahaan intaas kusoo gabagabeynaya wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda. daawada dadka cusub tahay channelka nagu soo biir, subscribe dhowr kuma kadibna fura gambalaalka, waxaad noqon doontaa qofka ugu horeeya ee hela xogaha iyo macluumaadka halkan aynu kusoo daabacno. tan iyo kulanti dambe ammaan Allah.